iyo waqtigii waxaan uga badnayd waqtigan inaan waalan hayna mid qabciidi fahmi weyday ma taagnaanaynin ma fadhiisanin ma seexanin waxna maan cunin waan soconayay waan fadhiisanayay waan istaagayay telefoonka uun basaa u hayay boqol jeer ayaan telefoonkaygii markaan dabka ka riday ka qofka kale la boodayay waan garaacayay ka markaan dabka ka riday ka aan la cararayay ka dabka ka riday ka kan baan la boodayay hadba qof ayaan telefoonkiisa kala hadlayay adigoo maryaxaan sila warkii wuxuu ku dhamaaday maalintii xilligii markaan ila hadlayay xilligeedii waliba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena qiso iyo qiiro ama qalbiyada dhaawacmay kaasoo ahaa barnaamij aan ummadda Soomaaliyeed kula qaybsano qisooyinkooda haddaba daawadayaal adduunkuba waa qisadan waxay la soo wadaagtay inaan walaashay ah oo lagu magacaabo Samaara Cabdiraxmaan taasoo ku sugan waddanka Imaaraadka caasimadiisa Dubai qisadan oo ah qiso run ahaantii aanan weligii arag oo aad iyo aad u xanuun badan waxaan rajaynayaa daawada in aad bilow ilaa dhamaad la socon doonto si aad u fahanto qisadan oo ah mid aad u xanuun badan inantii la soo wadaagtay waxay aniga iyo adiga iyo dhammaan ummadda islaamka ah ee daawan doonta ka codsatay inay u soo ducaayaan markaa walaal waxaa soo dhow bishii Ramadaan markaa walaashay Samaara waxaan rabaa inaad u soo ducaysaan daawadayaal aan inoo bilaabo qisada عليكم ورحمة الله وبركاته ودي السلام يا عادي يا دون مدة مسلمين تاو السلام يا يين تعود كي عندك السنتين تين ترى عادي يا نوح السلام يا ومدة الصومالي داء هي ولا بنت هفك الصومالي كو هذا الشيء إن مدة بدأ الوقت ولا بيا فل بعيد إسكال هذا هي جارة أو مرتي تقنا مكو هذا اللي سايجرته أنا من محمد السلام يا أنت مرتي هفك كرنيسة إن أنت هذا كسر قطبه waxaan idinka sheekayn doonaa qiso aniga igu dhacday run ahaantii ma garanayo qisadaas inay hadka ay ku dhacday weli ay jirto dunida koonkeeda ilaa iyo hadda waa qiso aad iyo aad u dhibaato badan markaan anigu mar walba fursado mar walbana dhaawaceeda wadata awal shay aan idinka bilaabo magacayga waa Samaara Cabdiraxmaan ku kortay إمارات عربتها خاصة مغلق دبي هلكا waxbarashada ku dhamaysatay ugu horreyn waxa ku dhashay Soomaaliland magaalada Hargeysa kadib aniga 12 sano jira ayuu aabahay halka naga waday maadaama aabahay ahaa qof markiisa hore Dubai ku noolaa halkaas ayuu markaa family-ga iyaga naga tagnay nolol qurux badan ayaan ku noolayn masha Allah tabarakallah waxa la dhashay 6 wiil iyo gabadha run ahaantii way yar tahay balse markii hore waxaan ahaa gabadha kaliyaatee u family-gu leeyahay maadaama maanaanta guriga ka dhalatay aabahay dhalay maadaama aniga walaashayda iga yar hadda 10 sano jir tahay intii hore dhan kaliya ayaa gabadh guriga waxa hooyaday marka laga yimaado gaarso macaan ana u jecelahay marna habar yartay gaalo maadaama hooyaday dhimatay aniga yar oo 2 sano jir ah sidaana aabahay ku soo gursaday hooyaday gaalo macaan aanay tahay qofka kaliya aan waligeed ibarin hooyo la'aan wax la yiraahdo mar walba aan waligeena habar yar ku dhixin hooyo mooyaane haddaan intaa idinkaga soo gudbo noloshayda khaaska ah nolosha kale qisadayda ayaan idinka sheekayn doonaa waxaan ahaa daalibad ama arday dhigata jaamacad ku jirta sanadka afraad ee jaamacadda marka waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah anigoo guriga jooga oo maxay ahayd ka imaaday jaamacadda markii horeeto laakiin waqtigaas guriga joogay goor iska xasrahayd waxay soo wacday saaxiibana aad isku jecelnahay ilaa iyo hadda aad iyo aad isku dhaareen ilaa iyo high school soo wada dhiganay jaamacadda ku wada jirnay saar ahayn ilaa iyo nolosha ciyaalnimadii markaan anaga halkaas soo degnay Soomaaliland ka soo gurnay waxay ahayd saaxiibtayda kaliya anigoo saaxiibada badan leh washtaan haddana waxay ahayd saaxiibadaha kale aad iga dhow
way la soo hadashay waxay ugu tiri maanta Samaara waan baxaynaa anigoo iska yar diidayo oo jeclay wallahi galabnimadka inaan baxo ayaa hadana baxay waxaan tagnay meel cafeteria markii aan tagnay habar joognay adigu iska garanaysan sheeko hablood iska habladee oo iska sheekaysanayeen markaa meesha salfiyo sheeko iyo wax iska hayni harabo ayaa wax dhacday wiil la noo yimaday laba wiil markaa Soomaali Imaraat oo meesha dhalinyarta loo dhan kara meesha ku dhashay iyo wiil Iraaqiya in Ayman ruuxaanta qofka nolosheeda ku dheer wayaan ayaa noo yimaday markay noo yimaadeen wiilashii adiga abaar way nala sheekaysteen way wiilkan Soomaaliga isaga aan markaa aan ahayn Iraaqiga Soomaaliga ayuu yar barbaranayay maadaama isagu wiilkan Soomaaliga saaxiib lahaa wiilka Soomaaliga uu Soomaali xogaa fiican yaqaanay isaguna wuxuu isku dayday jiray inuu Soomaaliga xogaa ay barbarto sheekadana halkaa uun bay ka bilaabmaysay in xogaa Soomaaliga buu jajabinay maanta muna way ku qosqosleen qaar ka mid ah inaan baa Soomaaliya xitaa kula markaa meesha joogay aniga xogaa waxaan dhahay inaan ka qoslina waa qaldantihiin waa sababtay tahay adigu macnaha waa xogaa way yar dufaacay maadaama qof markaa isku day uu ahaa kadib adigu amri xaasil sheekada intaan ku dhameeyay taas halkaas abaarad baa markii meel fadhiyeen way naga tageen balse inanka Soomaaliga ahaa ayaa wuxuu weydiistay telefoon wuxuu ku dhawaaqay telefoon maysi kartaa anigana Soomaali ahaan markaa wiilka telefoonka igu siiyay wax markaa shidaa iyo wax hay'atay aan arkay oo maartay dhibaato ma jirin aan xadiday wasiye kadib wiilkii la saxdaad la jiray talaba isbuuc baa ka soo wareegtay wiilkii markaa la saddex jeer soo wacayo walaal iska waranayo dad wax saas oo kale iska sheeko dhalinyaro caadiya balse maalin maalmaha ka mid ah waxa dhacday telefoon ay soo wacay aan macruuf markaa aan hayna ma aanan garin haynin kadib waxa iska waran seedahay Soomaali markaa kuma hadlaynin maadaama uu ku hadlay luqad Carabiya aniguna hadii ay tahay wax aan la hadlayo dad Soomaaliya Carabiga wuxuu gudbiyo aan luqad Carabiga ku sheegi karin marka iska waran walaal seedahay waa fiicanahay yaa tahay markaa yaa tahay su'aalayaan yaa tahay qof ma tahay kuma tahay milkii maan gelin wax maartay wax qaldan ama wax si sheeko kale laakiin wuxuu isagu ka sheegay si sax ah wuxuu yiri waxaan wiilkii maalintii halkaad isku aragtay ila socday inanka Soomaaliga ahaa ee bilaacanka ay halka ku aragtay waan gartay markiiba aan ku dhahaa walaal baan ku gartay okay wuxuu yiri عادي دبنية لدينا قصة وهاي مايا هذا هو الكيوس كيف يسوي جري مر والبا هذا هو وقت بدل وحيتانكي وحقاتي أنا قد أنا كل من لكن تلفون يسوي هاي مالي والبا رونهانتي شايلة يا ويلكي قالي أنا وقتي قام من دراسة حيتي أنا شايلة هاي لكن وحن كرياتو دريمية حتى أنا دريمية مركبة رونهانتي أنا ندبسنيني هذا الكويل كله هتلاقيه كلية موت جري إن أنا عاد بفرحة مرة الوحيدة هذي له هتلاقيه إن بدن يساعد بدن رونهانتي كنا عبن جري ما أورد جري وصيحنا يا هتوحي تبيك واحد تنبي يصوره وكقبل جري ولبنا بقى حلقاس جامعة دجنايي أدوب مركبة waxaa dhacday sanadkii markaa waxa dhacday imtixaankii baan galay imtixaankii jaamacadda sanadka afraad ee fadhiisanay waa dhamaynay waxay noqotay safiyad soo yaqaan ama fasax waan joognay gurigana joognay waxay gaadhay sanadkii shanaad ayaan anigu jaamacadda u fadhiistay laba bilooda ayaan markaa jaamacadda ku noqonayay sanadkii shanaad oo jaamacadda si aan bilaabay
bilood ay markaa sheeko isticaadiya ah oo wiilka aniga sheekadiisa oo aanan dhibsanin mar walba run ahaantii sheekadiisa aan aad uga helo in badan iga qosliya in badan aan la sheekaysto in badan iyo waqti badan aan telefoonka wada qaadano soo sheekaysana waxay gaadhay 7 bilood anigana markaa sanadkii shanaad aan jaamacadda u laabtay 7 bilood aan dhiganayay ayo habeenada ka mid ah anigoo guriga jooga maxay haystay igu yidhi waxaan rabaa inaan ku sheego markaa isagu wuxuu haweenan Soomaali ahayn fikir badan oo kale tan oo maskaxdiisa iska laftirkiisa ku jiray u qaadanayay hadduu igu yidhaahdo waan ku jecelahay dad intaan leeg bay jeclaa balse hadduu markaa ka fakarayay hadduu igu yidhaahdo waan ku jecelahay oo isagu jacaylkiisa ii sheego armaya ku jacayl maxaa tiri iyo wax la mid ah Soomaaliyeed calaashabood iska fahmi kartaa hablaha Soomaalida way adag yihiin isaga markaa wax badan ayuu ka fakaray markaa saaxiibkiisa ama wiilkii Soomaaliga ahaa ayuu isaga sheekada uga sheekeeyay marka hore intaan aniga waxba ii sheegin kadib wiilkii Soomaaliga ahaa wuxuu kula taliyay inuu aniga ila hadlo isagu wuxuu dhinaca ka dareemaya ama jacaylku yahay inuu ii sheego wixii aniga dhaxdo markaa ku dhaho isaguna uu maxay haytay markaa qaato hadii aanan aniga jacayl aanan dhinaciisa u qabin ama aanan wax dani kala hayn iska xidaayo hadii kalena way hagaagsan tahay kadib wiilkii go'aanku isku soo urursaday awoodna uu iskugu soo yeelay in aniga igu dhaho walaal waan ku jecelahay waxaan doonayaa nolol iyo mustaqbal inaan samaysano maxay haytay reer dhisano nolol wanaagsan samaysano iyo arrimo la mid ah markaa wuxuu sameeyay wiilkii habeenkii wuxuu ku dhahay walaalo waxaan doonayaa inaan wax ku sheego waxaan doonayaa inaan diga ximaanin run ahaantii waan ku jecelahay hadalba wax kaleba iimaan u sii gelgelin iga xanaaqin haddaad iga xanaaqdo run ahaantii waa kaa xumaanaya run ahaantii habeenkii markaa sidaa igu dhahay aniga dhan wallaahi been idin ma sheegayo aniga dhan waxaan noqday qof dabku ku timay wadnahayga garaac fara badan ka yeedhayo waxaan ku hadli garan waayay sidii cabsi oo kale tay igu dhacday saacad iska dhow waan aamusnaa isna way la hadlayay mar walba wuxuu doonayay inaan aniga jawaab celiyo wuxuuna ku dhaho laakiin muddo saacad dhow waxiitii waan hadli waayay waxba waan dhihi waayay markii dambe waxaan ku dhahay maanan u sheegin waxba kuma dhihin waxaan ku dhahay walaal aniga hadda waxba kuma dhihi karo waayo hadal aad kadisa ama hadal martay aad mar kaliya tay dhahday waxa noqday wax martay waxba waa soo saari kar waayay hadalkiina si toos ah waa u dhihi waayay marka waxaan ku dhahay waxba kuma dhahayo hadda laakiin waqti kale waxaan ku dhihi maalminkii oo dhan sidii baan ku tiri habeenkii ma seexanin waxaad moodaysaa inaan baqayo aan warwarayo wax iga siihiin xaalad baan galay wallaahi ma fahmin xitaa waxa markaa aniga yahay ama sayga buusiya ma arsi inta lagu babriyo ama saas oo dhan ula gariiray ina jacayl anigu waxaan jeclay uu yahay ma garanin balse waxa dhacday maalinnimadkii waxaan u tagay saaxiibtayda waxaan tagay jaamacadii waxaan tagay saaxiibtayda adigoo saaxiibadahayga kulligood ma wada sheegna arrinta maalintii laakiin saaxiibtayda kaliya taan u sheegay tii aan markaa naga isku dhaway washtaan saaxiibtay washtaan bay ahayd waxaan ku saaxiib aynkaas arrinta ay kasoo dhacday maxaa dhacday waxba run ahaantii iyadu markaa may sii faragelinin ama waxaa dhammaydhihin ama waxaa sameyn maydihin way iska aamustay oo kaliya laakiin waan laba intaasoo baan usii sheegay guriga ayaanini way soo garaacay martii oo dhan telefoonka manaan qabanin run ahaantii nafteeda dhinacsifka badan ayaa ku jirtay balse markii adigoo malaha shantii malaha heedaan ka qabtay waxaan u sheegay markaa afkayga maya hortay wax la yidhaahdo ama inaan wiilka jacaylkiisa diido uu soo qaban waayay maalminkii oo dhan waan fakarayay ilaa iyo habeenkii run ahaantii afkayga ama maskaxdayda wax maya iyo maaragtay anigana intaasoo dhan waxaan ka fakarayay wiilkan inuu yahay wiil Ciraaqiya ambahayna aanu mar laba hadduu doonayo golaan karin iyo waxyaaba lamid ah
ogahay aabahay qof reer magaalo weeyaan qof maaragtay صعب حدا أنا مرتي تذكر واحدة عامسين قلبا معها رول عندي مركا لكن واسك فكريي مركا ما نمت كيوردن هبيني مت كيوردن واحد فكريي بالكلام عندي لها وحي عندي لها أنت أمري حاسب وحسب سو قرتي وود الشيء كذي ما يوح لي له تورت وندي بالي وأي أود من له من أقول لهم ميا بس كلام نمت كي مركي للصهاد لي وأقولها وأي هاي أنا بتعير هذا الموقع قبلي لكن هالشرط كلية بنكو حدي شرط قصوها إن الجامعة إذا نقول مستو واحد مستقبلي يقولون أنا نبكو شيدين يعني ما دابا إيه حدا نيسر نتكاس على المركز جامعة لو بلود الدوام عيون جامعة لو بلود مركز ميقدر يوصل كيشان هذا حيت إيه ولي بس نتكي لحد ما دابا مهنة ديدا أما محايتي دراسة ديدا أي حيت اللي حسن ضغط مركز شركة كلياتي أنكو حدية وفاها جامعة دمشق inta wixii doorayay guriga la miday waxba tamaanay isku soo qadini iga moodidi wuxuu dhahay adiga imid walba sano kaliya walba sanadkii midaad bilowday dalkan keentay laakiin 20 hadda tiraado samaray waan ku sugayaa cimrigaaga inta ka dhimanaya dibitiraada xiitiisu diyaar ayaan ku ahay ku sugayaa intaan xiriirkan u soconaya waa soo shaqaysanaynaa waa isla soo hadlaynaa waa israaciina meesha doontay waxa doontaa waan ku soo sameynaya okay وأنا كوها شيني أنا بيقولكي ضد اللي بدسنا هاي أنا اللي بجمع ضد اللي جناي حدنا سيدي بقى حجر الهاي فاملي جيجا وحوار كمان وهيني مرة والبا أنا بدي وحبان برد جري سجن وشبان جري لا أنا هند وقتي بدل أسبوعية لكن وقتي جاي وفاها تلفونك سلسة هذا الله أنا أقول بما نقرأ عشرين أنت بدن مر كبدن ما قرأ عشرين هذا مر أما مر قرأ ما بقرأ عشرين أنت بدن لكن سجى يسوي عشرين وحها مد وقت جيسة أنا جاي نقول هذا كله مايا مركز هذا حتى ساسي جروب وقت ماضي كبا أنا قام بحين يسوي عيا قل كان كذي عشرين ولا هذي عشرين رون هذي ولا لدي هو يدي ويا عشرين تلفون ولقي أنا يهرو أركيشين يقول أنت حسد تلفون كهذا يمرول بتلفون كهذا لكن أنت ندرس كم تيجي مقال ما يكش كتير أما واحد ما يديه يجري أما يلا شيء بس دام وإحساس ما يديه يجري أنا يقول كمر كاه حسكو هلي جرني واحد فرصة ما نتا خميس توكلات مركاي تاي ما نتا خميس تكلبني ما توكلات ويا خميس تحبال تكتها marka maanta khamiista markay galabnimada ka kale fiid milaha ilahayo asarka kale to simaha iyo sabtida kale to adigu laakiin inta badan aan sharki jirnay hadana khamiista sare waxay sharki jirnay jimcaha sabtida oo bixi jirnay meelaha iska tagi jirnay cafeteria-da iyo meelaha quruxda badan ee meelaha wax iska hadi jirnay waqti aan soo qaadan jirnay waxa qafaadiyadu wanaagsan runtii laga sheekeeyo xumaan kula dhicin inuu gabar ku sameeyo wax qaldan kula dhicin inuu kugu dhaxo aad iyo jeclaa aniga labadii sano waxa soo wada soconaa jacaylkayga wuxuu noqday mid aan labadeeda kala maarmi karin aanan marnaba anigana waxaan ogaaday oo aan runtii ka shifay inaan aad iyo jecelahay marnaba runtii aan ka maarmi karin looxita dumaalnimadkii yariga raaway la soo hadli waayo waa ku qaylin jiray maxaad ila soo hadli weyday maxaad ku raagtay isaga waxa soo dhinta kama geli jirin mar walba waxaan ku aniga isku dijiray sida ii dijiyo haddaan ku qayliyo kale to ku dhada maxaad u raagtay maanta waa ilama hore lama soo hadlin ma soo garaacin saasuna المهم labadii sano way soo dhamaatay labadii sano waxa ku dhamaatay laba habeenii laba maalmood oo kale eeto takharrujkayga maalintii takharrujkayga ayay ahayd maalin laba farxadood aan faraxsanaa ayman ayaa anigana iskursan doono oo waqtigan aniga markaa kula balamay oo soo dhamaaday iyo waliba farxadayda takharrujka oo aan ahaa qofkii labaad ama kaalintii labaad ee jaamacadda wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay hambalyeeyay iyo waliba qofkii ugu horeeyay hadeedii kaalay maalintii way ka soo dhaaftay 3 maalmood takharrujkayga markii laga soo wareegay iyo aniga isaga kulanay
maalintaas waan fahmay waan garanay habeenkii la soo hadlay waxaan igu dhahay bari waxaan doonayaa inaan kulano waxay ahayd maalin khamiisa wax uu dhahay aan kulmayna waan kulanay galabtii ayaan guriga ka baxay waan tagay meel baan fadhiisanay wuxuu igu dhahay khalaas hadda adiga ballankaaga wuu dhamaaday aniga ballankaygiina noo fiyaaya layga baahan yahay waa kusoo doonayaa reerkiina noo imanayaa reerkiina u sheeg way sababtay tahay dama dhacaysa reerkeedina waxa uu sheegay anaga iskaga imaado ku dhadayna tiina doonaya dad sheeko qariib ah ama waa sheeko aan loo baahnayn aan guri waayahay run ahaantii habeenkii waan soo noqday war adigu markiiba waan soo noqday wax yar baan maqnaa waan soo laabtay guriga aan imaaday aabbo markaa shaqada jiray walaalahay aragmidin guriga markaa joogeen hooyo guriga joogtay arrintii cidna uma sheegin kaleeto aabba ayaa sugay aabba markuu yimaaday abaar kadib oo iska madmadhay guri ahbaar nastay aabban u yeedhay aabbahayaaniga waxaan dadaad iskugu dhow maxaa laniga iyo hooyo dhammaan reerkayaga waa dad aad hortay ruuxaantii masha Allah iskugu dhow wada saaxiiba marka aabba ayaan la hadlay arrintiina aabbaan u sheegay say ahayd iyo wiilkii ciduu ahay wax kasta aabbaan ku taabtay aabba markaan arrintii u sheegay run ahaantii aabba dee uu iska warwar badan yahay runtii inkastoo aanu diidin wiilkii ama aanu ku dhihin wiilkaas anigoo kuguma hadlayn karo run ahaantii iyaa damaanad qaadi kara waayo wiilka agoon ayuu ahaa aabba muu lahayn laba walaalo ka waaweyn ayaa jiray labaduna maxay haytay waxay deganaayeen beledkooda ama dhulkooda reera ayay lahaayeen ciyaal badan ayay lahaayeen marka isagu wuxuu ahaa gacanta keliyaatay hooyadii u shaqaysa ama hooyadii caawisa ayuu ahaa aabba markaa xogaa wuxuu muu adigu waxba saasoo dhibaataa muu samaynin laakiin wuxuu igu dhibasiyaa iyo dhammaan oo qaadi karaa wiilkan hadhowta ku dhaqanaya in adiga ku haysanaya in kaleeto yaa wada haynaya waxaan ku anigaa booranahay laakiin waxay aad tiraahdo kale way soconayaan oo kale anigaa bahay baa tahay waana kugu kalsoonay laakiin adiga hal mar la kulan hal mar markaad aragto aabba ama waad ka helin mar runtii waad ka heli waayay laakiin anigaa baan jecelahay waxba ma qarinin runna waan u sheegay aabbana wuxuu guri waayahay hayla kulmo run ahaantii aad baan u farxay waxay ahayd maalintii noloshayda aniga run ahaantii aad u faraxsan ayaan la hadlay waxaan u sheegay aabba inuu doonayo inuu la kulmo dabeedna wuxuu guri waayahay bacdal bukra ayaan idiin imanaynaa maalinta beri mooya saa dambe markaa meesha waalidiintiisa manay deganin walaaladiisa balse waxaa deganaa niman inay isku family yihiin ama isku cid yihiin isku dhow yihiin kuwii ayuu soo kaxaystay nimankii meesha waaweynaa marka aabba ayuu yimaadeen marka aabbo run ahaantii wuxuu ku yidhi aniga deg inantaada waan jeclahay nolosheedana aniga ku hala inantaada wax yar xumaana ku aragtay iga soo kaxayso marka aabbaay wuxuu ku yidhi hadii aad inanteeda ciraaqii suudmilay baayo meesha marso inanteeda maxaan ka baxay maya buu dhahay naga ciraaq ma guurayo meel kalena ma qabanayo inantaadii anigana halkan inaanu degno uun baan ku heshiinay meel kale kumaanan heshiinin marka waxa dhacay kulankii aabba iyo ayman kadib run ahaantii aabba aniga way bixiyey sidii inan loo bixin jiray maxay ahayd inan loo bixin jiray sharafta lahayd ee aabba bixiyey markuu arkay aabbo daacadnimo inuu ayman u hadlayo qof maxay ahayd run ahaantii wanaagsan uu yahay isla markii hortay halkaa kula kulmay oo abaar ka sheegaysay kadib ayman saasoo aabba igu mehriyey saasoo ayman aabba igu siiyey ayman intaanu markaa soo wixin isla markii hoteelka laga soo baxay aabba ayaa soo garaacay wuxuu ii sheegay aabbo inuu ayman aniga i siiyey run ahaantii maalintaas waxay ahayd hadii la yidhaahdo maalintii dunida kuugu farxad badnayd maalintii dunida igu farxad badnayd waxay ahayd maalintii aqalka guri dhan aanu ku jirnay guri 2 dabaq aan deganayn farxadda darteeda guriga wuu qaadi waayay waan cararay mar boqol baan galiyay mar qof baan u tagayay marba meel baan cararayay halashaa waxa la oran karaa wali uun jacaylkayga dartiisa run ahaantii sidii wax waalanayo kala ahaa markii la sheegay farxad dhan ayaa aqalka dhan wuu qarin kari waayay inta soo wareegtay ayma wila soo hadlay خبر ما ولا شيء سنير أنا عند لبدي ده محن لبقى فاض فرحسن فرحت درت الحيت إسلام أنا فكرين إنه بدي ده وان كلا درني
20 cisho ka soo wareegtay arooskayga baa dhacay isaga familigiisii saaxiibadii hooyadiisa walaaladiisa waa yimaadeen Dubai masha Allah tabarakallah arooskii in loo dhigay jiray kii qurux badnaan aniga ayaa la dhigay wax kasta inaan ay ku riyooto ama maxay ahayd ay niyeysatana waan helay بعد arooskii kadibna waxaan tagnay guriga maxay ahayd Ayman oo noo diyaariyay marka hore uu noogu tala galay kaas xaafadayda ka yar fogaa maadaama Ayman uu ahaa qof shaqeynaya shirkadda markaas uu ka shaqeynayo xogaa oo yar dhawaa gurigu masha Allah tabarakallah waxaan ku noolay nolosha farxadda dunida haddii la yiraahdo qof nolosha ku noolaada ta ugu wacan gabadhii jeclaysataa ama ninkeebay jeceshahay ama ninkeebay doorataa inay doorato ay wacan tahay qofka ugu wanaagsan qof runaantii haddii la yiraahdo laba qof oo reer la ama laba qof oo xaas leh anaga maanan hayn waxaan hayn laba qof oo la yiraahdo laba qof oo mida Ayman wuxuu haato ama ruuxi waxa qofka kaliya tii runaantii madax hadii wareera ama arka anigoo yara taabsan maxaa ku helay maxaa kugu dhacay shaqada isagoo ka soo waxay oo soo daalay hadii doona aniga iska hurda ama iska jiifay yimaada ma jiiftaha mad hurdaha dib malaha iska hurud iska jiif cuntada aniga ii sameeya runaantii igu keena aniga iska jiifan wax maanta dhan qabanin cuntada jiifkayga kana gacal cunto korkariyay isma kaaysa wax ma cunaysa hadda doona suuqa u baxa inta soo qaada soo iibiya maxay haytay aniga wax qabanaya xitaa haduu iminka yimaado maslan oo shaqeynaya ama guriga ka shaqeynayo kaliya nahayn ama weel xalaya ama matbax ku jira ama maxay haytay wax masaxaya ama wax kala qabanaya mu isma kay agtaaga jirin waxa laga yaabaa inuu aniga waxaan markaa gacanta ku hayo iga qaaday iga booday maxay haytay isagoo qaban jiray waxa qof runaantii Allah yarxam raahimin maanta hortay Allah ha u naxariisto umada inta codkayga dhageysanayna waxaan ka baryayaa inay u duceeyaan inay Allah ha u naxariisto Allah yarxam raahimin anigana ay duceeyaan si Ilaahay maskaxdayda uga saaro runaantii wuxuu ahaa qof aan ilaa iyo hadda tilmaami karin jacaylkana runaantii ma aha waxaynu dhamaantiin sheegi karno oo waxaynu oran karno bas aynu kala afka ka dhigi karno laakiin kale aniga way igu dhacay mana tilmaami karo mana dhigi karo jacaylku wax midabka leh ama aynka weeg ama sida qofka u qabta laakiin runaantii jacaylku waa farxad iyo runaantii saacade iyo runaantii wax kasto wanaagsan iyo wax kasto qurux badan runaantii halkaas aan deganayn masha Allah tabarakallah sanad iyo 3 bilood ayaan guri lahayn maalintii runaantii anaga guriga joogna waqtiga bishii walba Ayman wuxuu qaadan jiray 7 maalmood oo fasaxa ayuu lahaan jiray maalinta waxa lagu jiray isbuuc fasaxa tan fasaxa ayuu ahaa muddo 4 maalmood muddo 4 maalmood meelahaas guriga joogay markaas uu fasaxa 7 maalmood aniga ayuu tahan jiray meelahaas mari jirnay nolosheeda nolol qurux badan iska qaadan jirnay kadib markaa adigu waxa dhacday maalinta 10kii guriga anaga joogna aniga isaga runaantii faraxsan wax naga maqan aan jirin marka farxadtii dunida haysana aniga xaamilo ahay ayaa maxay xitay Ayman telefoon u yimaaday kaasoo ka yimaaday reerkooda walaashii waxay ku dhahday hooyo way bugtaa way xanuunsan tahay xaaladeeda ma fiicna dhakhtar baan geynay runaantii markaa wuxuu ku qasbanay inuu isugu baxo maadaama aniga xaamilaha aniga waan jeclaa inaan raaco laakiin isaga wixii ka codsaday inaan iska joogo guriga kadib uu tagay 20 cisho tigidh ayuu goostay anigana maalinnimadkii intii aan tigin ka hor waxaan soo adeegay familigiisa iyo shopping soo sameeyay maadaama uu baxayay familigiisa u tagayay intaan iskursanayna ay ahayd markii ugu horeysay oo intii iga baxay familigiisa qartay anigana shopping baan soo sameeyay qof walba waxaan ku kala aniga dooqa familigaaga ma aqaano laakiin dooqayga ayaan qof walba shopping ugu adeegaya insha Allah way ajabin doonaa kadib adig shopping ma soo adeegay shoppingkii safar uu safray markuu madaarka uga degay wuu la soo hadlay maalin walba wuu la soo hadli jiray wuxuu iga maqnaa 17 maalmood
maalin kasta wuu la soo hadli jiray, maalin kasta saacad kasta. waxay ahayd marka ugu badan iga raago inuu 4 saac iga maqnaado, kadib uu soo waco iska waran si ay tahay Samaari ma fiican tahay xaaladaad si tahay. waayo maalintii markii iga sii tagay aniga guriga baqooyan sii tagay waxaan halkaas inta maqantay sii joogay ama daba guriga cidlaha cidna aanay la deganin bartasan sii deganaanaya la sii joogaya heerka guriga aan sii joogaya adigana ii soo laabo hayay ugu dhahay. waxay ahayd marka uu iga raago aan maanta ilaa waqtigan waa buraagay lama soo hadlin 4 saac inta ugu badan iga maqnaado. balse run ahaantii maalmaha kamid ah ayaa waxa dhacday way la soo hadlay xogaa malaha markii 10 barkii malaha say ahayd dad wixii COVID-19 ka horeeyay isagoo aad u faraxsan. run ahaantii WhatsApp iga soo garaacay Samaari ma fiican tahay waan la maamti aniga waan ku qoslaayay waxaan ku maanta waa faraxsantay waxaad cuntay maxaa kugu baxay. runtii gulaha saaxiibadii baa la joogaa runtii waxaan doonayaa maanta inaan saaxiibaday maadaama iminka hooyana ay fiicnaatay alxamdulillah waxaan rabaa safarkayga inaan iska soo gaabsado oo iska soo noqdo 2 maalmood 3 maalmood kadib. markaas 12 soo maqnaa hooyana iska fiicnaatay alxamdulillah doctor dhakhtarkii ka baxday guriga reerkii iska fiican yihiin waxba igama maqnay igama cidla ah. marka maadaama aan hay'ad waxaan doonayaa maanta inaan la soo qaato asxaabtayda waqti maadaama soo noqonayo hooyadii fiicnaatay waxaan rabaa inaan asxaabtayda maanta waqti la soo qaato sadarteed u faraxsanahay. kadib waxaan ku waayahay waqtiga qaado asxaabtada la soo joogo maanta khayr ma intii ogahay asxaabtii soo midmidii tusay kan ma garanaha waxa jiray markaa in asxaabtii soo afar bay haayeen marka saddex baa la socday. wiil kamid ah waxaan ku arkay arooska inuu ugu yimaaday 2 kamidana maanan garanaynin markaa laakiin isaga ayaa ii sheegay laakiin mid walba asxaabtiisa waan ka maqlay ama telefoon ayaan kala hadlay maadaama isaga mar walba la soo hadli jireen. markaa waxa dhacday maalinimadkii run ahaantii qadarkii rabbi ayaa run ahaantii dhacay qadarkayna dhammaantiin wada dhaafaynin qadarka run ahaantii dhammaantiin inuu wada sugay ayaa maalintaas dhacay. markii ay manaya asxaabtiisa ay bixeen aniga telefoonka iga dhigan in yar kadib run ahaantii gaari ayaa gabigoodiba gaari yar ayay wateen markaa meel si qaldan anigu ma iyaga qaldan ama gaariga qaldan kula run ahaantii hadda ma garan karo waqtigaan anigu dib uma raacin uma dhihin yaa qaldana balse gaari weyn ayaa gaariga yaraa galay kadib gaarigii dhamaa gaariga weyn gabigiisiba uu gunta gashaday. ayman isaga markii nafta way ka baxday waayo madaxiisa oo dhan wuu burburay wajigiisa 2-3 xagtimood oo saas ku yaalay laakiin wajigiisa oo dhan waa u kala daatay baan malay waayo lagama furin faashad baa ku xidhnayd gabigiisa waxba soo ugu duubnaa. ilaahay baa horta marka loo daayaa innagana waxaan nahay bulshadeena dad mar walba noloshooda qadarka rabbi dambaysiya oo waxyaabo kale oo horeysiya. run ahaantii arrintaas ma yahay mid aan aniga maskaxdayda galaysay ama mid maxay haytay aniga filayay ama mid aan waligay ku xisaabtamay. ayman kaliyaata waxaan haysan jiray inuu yahay qofka kaliyaata ee cumrigayga intii ka hadhay ila joogaya. anigana haddii maalintaa la weydiin lahaa wax laga la tashan lahaa halkuu isugu jooga aniga geli lahaa. run ahaantii ayman aad ayaan u jeclaa intaan jecelahay in boqolkeed leelin isaga jeclaayo ka badan. waxaan ahay 2 qof oo hal mid ah 2 qof oo markuu qof murugooda ka kala murugoodo 2 qof oo markuu mid farxo ka kalena la farxo 2 qof oo maaragtay habeen iyo maalin waxaan ahaan jirnay sidii dad waalan oo kaleeto hooyo aabo walaalahay dhammaan way nagu qosli jireen markaan arkaan waxaan oran jirnay idinka waa walaalantihiin haa waalidinoo daayay baan dhahaynin. run ahaantii hooyadii waxay u dhihi jirtay mar walba ilaahay xasadka ilaali run ahaantii adigu waxaad hesho qofaad ku jecel oo jacaylkaaga adigu ninkan ku jecel yahay. run ahaantii amriya xaasil ayman maalintaas igu geeriyooday alla yarxama. muddadaa kadib waxa aan waayay muddo 24 saac telefoon u leeyahay telefoonkiisi waan wacaayay daqiiqadii walba 10 jeer ayaan ku celinayay 24 saacadood waxay ahaayeen 24 sano oo kale waxay ahayd waqtiga dunida ugu dheer
iyo waqtigii dunida ugu dhibaatada badnaa iyo waqtigii uu xanuunka badnayd iyo waqtigan inaan waalan hayna miyuu qabcidi fahmi weyday maan taagnaanaynin ma fadhiisanin ma seexanin waxna maan cunin waan soconayay waan fadhiisanayay waan istaagayay telefoonka uun basaa u hayay 100 jeer ayaan telefoonkaygii markaan dabka ka riday ka qofka kale la boodayay waan garaacayay ka markaan dabka ka riday ka kaan la cararayay ka dabka goynay ka kan la boodayay hadba qof ayaan telefoonkiisa kala hadlayay adigoo maryaxaan sila warkii wuxuu ku dhamaaday maalintii xilligii markaan ila hadlayay xilligeedii waliba markay dhaaftay telefoonkii markaan nimankii booliska ahaa markii meesha ka qaaday ay maxay haytay familygii reerka ku wareejiyeen walaashiisa isaga 2 sano ka weyn telefoonkii loo dhiibay iyadana way furtay isla daqiiqadii telefoonka soo la furay dalaq baan dhahay run ahaantii markaan dalaq saa telefoonku dhahay ay ka qabatay anigu kaliya markaa waxaan ku degayay ama aan ku qaboobay codkiisa kaliya bay ahayd codkiisina waan waay naag baa soo booday aniga dhan maskaxdayda tafkiirteeda gabiga dhan wax kale ay ku furmay yaab naagtan xagga ka soo baxday tan maxay ahayd alsha amarnaba qadarka rabbi iyo dhimashada oo ay dhintay meesha ma soo gashay markaliya in wax soo gaareen xitaa meesha ma soo gashay inkastoo warwarsanaa inkastoo islaam maxaa ku dhacay xagga aadan maxaa halay xagga haddana marnaba maskaxdeeda may gelin uu dhintay gabadhii waa ay dejin kari weyday waayo may rabin inay si cad markiiba ay tiraahday ma uu geeriyooday waxay rabtay inay aniga istijiyo oo ay ku tiraahdo adiga istiji markaan istijiyan si wanaagsan la hadlanayo si waan wixii u sheegtay laakiin aniga waan degi waayay waayo aad ayaan warwarayay aad ayaan u tacbaansanaa xaaladaydu waxay ahayd midaan laga warami karin haddana aan idin ka sheekin karin kadib gabadhii aad markaa bara adigu istiidaji degi waayay aniga aad ahayd adigu maxaad ahayd adiga telefoonka maxaa ku keenay aymankii ay weey aymankii unba ku washay kadib waxay u tiri aniga waxaan maryan markay ugu tiri horta xooga waa soo degay kadib waxaan dhigay ayman wax ma ku dhacay xaq u qabtay nuurda hadal fara badan kadib iyada waxay walahayd inta rooy istaji bal sug istaji kadib markuu ay deg waayay telefoonka igu dhib kadib waxay u tiri ayman maxaa telefoonka ugu dhiba ayman uu dhintay shalay ayuu geeriyooday 10 subaxnimo shalay gaariga ay ka haysteen isagii asxaabtiisa gaari ayaa la galay kadibna uu geeriyooday ruuxantii intaas oo dhan hadalaba intaan ay dhameyn ayman uu geeriyooday ugu tiri waxaan u qaatay adiga naagta ma kugu ciyaaraysaa adiga waad iska hadlayday martay adigu hadalkan kula hadal waad iska hadlaysaa Soomaa iska hadlaysaa aniga doosay aad ku ciyaartay Soomaa kadib waa qaylisay waayo wad garanaysaa qof isaga bigariyo taalo walaalkiisa dhintay anigana qaylo iyo martay xaq u qabtay iyo maxaad igu dhiibooday aan kala dhamaan waayay waa qaylisay wuxuu ku tiri wuu dhintay baan ku yiri kuma ciyaaray warun wuu dhintay telefoonkan gacanta ku hay wuu iga dhacay anigana dhulka ayaan galay goortan dhacay iyo goortan dhulka galay xitaa waxba kama fahmaynin telefoonkan gacanta ku hay goortiga siibtay ma garanaynin marka guriga aabba joogay hooyaa joogtay walaalahay baa joogay goorska duhur bay ahayd famliga oo dhan baa joogay masha Allah leegama fogeyn haddii leega fogeyn lahaa maalintaas anigana ma raaci lahaa kadib waxa dhacday xaaladaydu aad iyo aad khatar gashay aniga markaa warbaan lahaa qof xaamila baan ahaa dhiig badan baa iga qotay علشان المهيجا وحبا سو غاday isagana dhiig badan baan inay ka qubtay xaaladeedana halis bay gashay kooman galay muddo 8 saac ku dhowaan koomada ku jiray khaatirtii markii baa dhakhtar baa aabigay iyo walaalahay markii walaal la arag dhakhtar baa leeyay waa lagu dadaalay adigu waana soo miiraabay sida markaan soo miiraabay afkayga wax kale maan soo qabanin ayman aawi oo kaliya taay ayaa aragtayda wixii ka soo baxay waxa kadib xalayga mamnuucay oo dhakhtarku diiday inaan anigu safraaman meel qabtaaman wax qaldan sameeyaa ma aan maaragtay fikir fara badan maskaxdayda ku furo
runaantii taasoo mushkilad badan u keenaysa aniga iyo waliba ilmaha caloosheeda ku jirayba markaa wuxuu yidhi dhakhtarkii haysta jiso guriga iska fadhido wax dhibaataana maskaxdeeda ay gelin marno isku furin laakiin waan diiday aniga waan aqbali waayay inaan joogo inaan fadhiisto iyo inaan aqbalo xiitee inuu Ayman dhintay illa ma hayo labadeeda indhood meydkiisa la saaro markaan yeeli waayay dhakhtarkii la hadlay wuxuu ku yiri ma yeelayso waan ogahay gabadhayda way wacniga way madax adag tahay laasim waynan wax sameeyaa dhakhtarkii dawooyin buu soo siiyay wuxuu ku yiri dawooyinkaas insha Allah hana degto kaxee xaga hadhina idinku daba taagnaada haddii ay xanuunsato markiiba dhakhtarka idinku dhowgeeya nolosheeda aad bay adag tahay ka taxadira xaalad adag bay gabadhan ku jirtaa in saafirtana looma ogola balse idinka madaxiina iska saafiro dawadana siiya mar walba ay ku aragtaan inay taabaan tahay ama xaaladda way aad aragtaan inay wax iska bedelayaan dawadaasi walaalkay iyo maxay haytay oo aniga 2 sano iga yar iyo bay raacay sidii baan ku tagnay markaa wuxuu la hadlay familiga maxay haytay Ayman oo ka geeriyooday ama maxay haytay Ayman yarkoodii wuxuu u sheegay inay soo baxnay kadib madaarkana loogu yimaaday walaalkayba noo yimaaday oo isaga ka weyna madaarkiiba noo laga kaxeeyay waan aqbali waayay in la geeyo gurigii reerka waan diiday kaliya ta madaarka markaan ka degay waxaan idhi si toos ah aniga la geeyo halka Ayman joogo meel kale ma ogolin waxay ahayd waqti markaa dhakhtarka mar ay waqtiga la galabaa jirta markaa waqti dhakhtarka xidhan yahay waqtiga la galayo aan jirin waan diiday haddana waxaan ku adkaystay adigu inaan dhakhtarkii tago adigu laakiin waxoogaa kadib markii aabbaye inankii la hadlanay ku dhahdeen saacad kaliya taba hadhay saacadaas gurigan ku siinasano biyo cab stage adigana qof xaamil ah baad tahay laguma ogola waad dhakhtarku ku sheegay inaad soo dhan isku dhibto adigu amri xaasil gurigii baa la geeyay saacada saasan u eegaya saacadii markii soo dhacday wax dhaxay iwada aabe dhakhtarkii walaal dhakhtarkii baa la geeyay waxna la geeyay meeshii meedka Ayman baa talaagada laga soo qaaday laga soo saasoo kale looga soo saaray laga soo jeeday talaagadii run ahaantii wajigiisa markaan arkay marasa ugu tidanayd waxba saa ugu xidhnaa gabiisa dhan waa la furay iyadoo waliba Ayman noo ahayd oo loo ogolaan in meedkaas la arko haddana aniga markii xaaladayda nimanka dhakhaatiirtii iyo nimanka booliska xamish joogay xaaladayda markii arkeen waa la ii ogolaaday run ahaantii mar alle markaan arkay wax la wixii qabtay la waayay aniga dhan inaan talaagada galo iyo inaan dhinto wax caloosha xaaladayda waxay ahayd dhimashada wax ii ahaan lahayd maalintaas nas iyo ama nastaxo wax wanaagsan ومالنت هدي اللي ورينها واحد طلبه إن عندتهم بدل بنها مثل بدير نهانتينا نولاد ويزلو تحتاج نولا شحيته نفتر كذا إن النولا هي إن عندتي حيته بنك لجرنين حالة إنه هيهد من الآن أو ناقصين نهانتي إلا هذا مكان حسوسته قلبي جاي نولا شيء ده إيه عقلي جاي أنت ما وقايلين يا دا واحد فربنا بكوياله يقولين هذا اللي يمكن يسيدان واحد عادي مركان markii xogaa la iga qabtay anigana aan si kala tan noqday gabigaba waan dhacay meeshaan hadana ku soo xay mar labaad kooman hadana galay 6 maalmood ban marka dhakhtarkii meeshii ku yaalay ayaan ku jiray aabbaygu iyo walaalay igu hayeen hal soo saaray Ayman waa la aasay aan si dabaad baa Ayman la aasay Ayman markii la aasay aabba wuxuu khalas aniga halkan hadii marka Ayman waa la aasay khalas xama yaalaan wayna inaga baxnaa aan maxay haytay qabana xafidani wala soo qaaday run ahaantii aniga maalintii hadii la oran lahaa maxaa dalban dunida oo aad ku jeceshahay qabriga ay lagu riday baan dalban lahaa run ahaantii wax ii ahayd meeshii kaliya aan u ark lahayna ku nafsi lahaa way waqtigaas naftu hadii qof ka baxayso aniga idmad soo xidmaysi nafti ka baxayso xaalad xun aan markiin ka sheekin karin ayaan ku sugnaa aabay walaalkay soo raacay guriga baa la keenay dadku way ku sheekaysan jireen maan maqli jirin 7 jeer ayaa la yeedhayay waa la yeedhaa waxba ma maqlaynin maanta hadii la leeyahay kaalay cuntadan cunno ma kaalay sidan yaal waxba ma maqlaynin
qofka hadduu maanta wixii su'aalayo meel kale joogi jiray waxma maqlaynin marka 7 jeer ama 10 jeer la yeedhaban mar sidii wax hurdo ka kacday oo kaleeto heedhaayay waxaan ku sugnaaday xaalad aan inaba qof bilaadan aanu malaysin karin in qof ku sugnaan karo ama qof heerka inta lagu gaari karo amri xaasil waxa dhacday aniga waxa kaliyata ama meesha kaliyata ku nafiso ama meesha kaliyata aan ka helo nasasho waxaan jirtay goobahan anaga tagi jirnay meelaha fadhiisan jirnay iyo meelaha anaga ku kulmi jirnay intaas oo kaliyata ayaa aniga nafsiyahan jirtay meelaha anaga tagi jirnay saacad walba waan iska fadhi jiray maalin oo dhan intaan doono subaxii markii 8 ama 9 ka iska baxo ee leeyahay jiray markaas la qosan jiray habeen bay noqon jirtay xaq qabatay xaq ka baxday wala raadin jiray wala dooni jiray marka asxaabtayda khaasatan inantan aadka iskugu dhaweyn magaceedu washtaan la dhaho taas waxay taqaanay in badan meelaha aan u fadhiisan jirnay ama meelaha iskugu tagi jirnay maalinba meelun baa sidii wax daayaca ayaa meel iga soo heli jiray aniga meesha iska fadhiya ma dareemi jirin waqtigu goortu dhamaaday haddaan doono meesha 8 subaxnimo ama 9 subaxnimo soo fadhiistay ma dareemi jirin qorraxdii inay dhacday in kale dadkoo dhan meesha igu arki jireen wala ilaalin jiray sidii wax walana oo kaleeto ee maalin walba qof aniga la dirayay oranayay iyadu bixin ilaaliya guriga la quful jiray faraha laga xasan jiray xaalad aad ba ku jiray waayo waqtiga waan soo dhawaaday xaamila ayaan ahaa waan soo dhawaaday inaan waqtiga umada ay ahayd marka waxa aabahay hooyadii ka baqi jireen inaan intaas ka tago meel xun marka aan ku xanuunsado ama wax soo gaadhaan adigoo akhritaankii wiilkayga ayaan dhalay wiilkay iftiinka noloshada soo celiyay run ahaantii waxna ahaa maalintii aan mulay qof run ahaantii haddii la odhan lahaa qof dhintay haddana nool maalintii wiilkayga yar uu dhashay dhawaaqiisa aan maqlay sidii wax hurdo ka taasoo kaleeto noqday wiilkayga riyo badan ama rajooyin badan oo lahaa horta run ahaantii ayaan ku rumeeyay laakiin dhaawacii wuxuu noqday midiga hadh waayay mararka qaar waxa dhici jirtay sidaan joogo guriga aniga guriga jooga inaan ka yar la jooga ama baxti guriga jooga inaan iska baxo ama inaan kaba intaan ka tago ama inaan ka yar oo yarba intaan qaado meelihii iska tagi jiray amri xaasil waxaas way iga hadh waayeen xanuunkii waan ka bogsan waayay inkastoo aan ku mashquulay wiilka oo aan ay jirtay inaan isaga waqti siiyay noloshaydana aan u arkay inuu yahay qof maaragtay soo celinaya haddana waan ka bogsan waa dhaawacii waxaan ka soo baxay wiilkayga isagoo yar 4 bilood jiray magaalada Dubai iskaga soo baxay kadibna halkan baan iska imaaday halkan baan iskaga noolahay meel la yiraahdo maxay haytay waddanka Saudi Arabia khaasatan magaalada Makka al-Mukarrama cimrada ayaan tagay run ahaantii masjid al-Haramayn ayaan ku soo tukadaa mar walba tan doona maalin walba iska soo dhex fadhiyaa galabnimadkii guriga iska soo aaday ilaa iminka xanuunkan xamadii uu yimaaday oo iminka masjidkii la xiray oo maxay haytay xaramkii la xiray oo meelna aan loo bixin runtii ma sha Allah tabarakallah halkan wax badan ay iska bedelay guriga abtayga baan iska noolahay nolosheedana halkaas ay ku sugan tahay marka ummadda muslimiinta inta afka Soomaaliga ku hadasha iyo inta afka Soomaaliga taqaana run ahaantii anigu miyi qof dalbanaysa talooyin kaleeto iyo maxay haytay waxyaabo kaleeto la siiyo ama in la yiraahdo maxay haytay waxaas samee iyo waxaas kaleeto qabo kaliya waxaan u baahanahay dal Ramadaan ayaa soo galaysa oo bishukran ku soo digay qablaha ducooyinka la qabalo waxaan u baahanahay marka ummadda intii codkayga dhageysata inay run ahaantii duceeyaan si rabbiga weyna waaxidka run ahaantii ayman maskaxdayda uga masaxo iyo qalbigayga nolosheedana nolol fiican aan ugu noolaado
wiilkayga yar aan maxay u rabaysto la fiican iyo tii maxay aan u rajaynayo tii aabihii ugu riyoon lahaana aan anigu u gaaro intaasoo kaliya taa ayaan umada ka codsanayaa intaasoo kaliya taa ayaan rabaa maanta umada qisadeeda inaan la wadaago run ahaantii meehii qof rajo kaleeto dee leh ama le maxay umadu